madaxweyne ku-xigeenka Somaliland Cabdiraxmaan Abdullaahi Ismaaciil Sayli ayaa waxa walaac xoogan ka muujiyay tayada waxbarasho ee bixiyaan jaamacadaha kala duwan ee dalka ku yaala kuwaas oo sheegay inaanay ku tartamin tayeynta waxbarashada ay bixinayaan balse ay ku tartamaan oo kaliya buu yidhi siday u kala arday badan lahaayeen isagoona arrintaasi ku tilmaamay inay tahay afa qaran sidaasna waxa uu madaxweyne ku-xigeenku ku sheegay shirka qaran ee tacliinta sare ee Somaliland oo maanta lagu qabtay magaalada Hargeysa hadalkan ka soo yeedhay madaxweyne ku-xigeenka Somaliland ayaa ku soo beegmayay iyadoo muddooyinka u dambeeyay si aad loo dhaliilayay tayada waxbarasho ee bixiyaan jaamacadaha kala duwan ee ka howlgala dalka Cabdiraxmaan Abdullaahi Fantastic Ariel TV Hargeysa.